labadii November sanadka 2019 shalay shirka furitaankiisii waxa dhacay shirka muxuu ahaay dhaqanka jooxisi lagu yaqaanay quraankii baa lagu furay quraankii baa la khatimay wacdi diini ah lagu furay khudbadii gudoomiyaha ee furitaanka warbixintii gudoomiyaha warbixintii xogayaha guud warbixintii hay'adaha ururka ee guddiga fulinta ayaa la soo jeediyay waxaa la ansixiyay ajandayaashii shirka kalfadhiga shirweynaha ka horeeya sidoo xeerku yahay waa inuu kalfadhi shirweynaha ka horeeyo kalfadhina waa inuu ka dambeeyo kan kii ka horeynayay waxa soo dhaliilaya hawsha ama soo qorqorayay hawlaha xeerarka iyo barnaamijyada iyo dhismayaasha marka si fiican maalinkii labaad buu galay jawi aad u qurux badan goob qurux badan oo doogaada oo qabow oo muxuu ahaay hawadin badan haysata oo soo dhaweyn fiican haysata jawi aad u qurux badan buu ku socdaa si weyn baa loo fikirayaa si weyn baa shirka loo diyaariyay qabanqaabo quruxsan buu leeyahay marka maalinkii labaad buu galay aad iyo aad galabta natiijooyinka iyo berrina saxaafadda waan la wadaagi doonaa guulo fiican buu ilaahay hadda ku tallaabsaday qiimaynihii baa la geli doonaa maanta waxa xaaladda Itoobiya xaaladda Ogaadeniya xaaladda Geeska Afrika xaaladda caalamkeena khusaysa waxaa la geli doonaa gelinka dambe qorshayaasha ururka sanadaha soo socda ay ka mid yihiin barnaamijka siyaasiga iyo xeerarka lagu dhaqmayo iyo istiraatiijiyadda ururka hawlahaas oo dhan kalfadhigana yaa haddii rabbi xugmaayo sii dhiliili doona oo sii falanqayn doona shirweynahana waa la soo hordhigayaa aad bay magaaladu u soo dhaweysay shirka aad bay u soo dhaweysay hogaamintii golaha dhexe ee timid aad bay magaalada iyo maamulka gobolka Shabeelle Jowxo iyo maamulka dawladda iyo maamulka maamulka iyo dhaqanka hogaaminta dhaqanka ee deegaankooda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa hada iyo ururada bulshada aad iyo aad soo dhaweyn fiican baa jirta intaas la wadayn waa mahadsantihiin afayaan shirku isbedel intee leeg ayuu ku saameyn ayuu ku yeelan karaa ururka isbedel istiraatiijiyadda iyo qorshayaasha wax weyn mabaadi'da iskama bedelayo laakiin istiraatiijiyooyin cusub oo marxaladda nabadda ah ee dalka gudihiisa ka halgamayno dalkeena oo dhan 19 gobol iyo 10 milyan ee Soomaalida iyo la hardanka 10 milyan ee Itoobiya iyo xuquuqda dadka Soomaalida soo dhicintooda ay ka talintooda difaaceeda midnimadooda dhuleed iyo midnimadooda dadeedba difaaceeda hawlahaas oo dhan ururka muxuu ahaa shirkani si weyn buu u dejin doonaa marka saameyn weyn bay mustaqbal ku yeelan doontaa geed socodka nolosha dadka Soomaaliyeed shirkan ku yeelan doontaa maadaama 10 milyan oo ku nool yihiin Soomaaliya gudaha Ogaadeniya baahidooda horumareed iyo too masarka siyaasadeed ee dadka meesha maraya ururka oo leh go'aamada ka soo bixi doona shirkan ma ka jawaabi doona baahiyaha noocaas uu ka jawaabay horta 10 milyan aan waa carabka iga xaday waa 15 milyan Soomaalida 15 milyan marka uu ka soo bixi saameyn bay ku yeelan doontaa ay ka talintooda muxuu ahaay saamiga ay ku leeyihiin Itoobiya horumarinta dhaqaale ay tabayaan midnimada ay tabayaan amniga iyo xuduudaha iyo dhibaatooyinka ka haysta in laga dulqaado waxaas oo dhan saameyn ku soo marka aayaha nololeed ee dadka Soomaalida si weyn buu saameyn doona shirkan intee leeg ayaad ku qabtaan oo kalsooni ku qabtaan shacabka maadaama ururku isku diyaarinayo urur siyaasi oo ka qayb galaya doorashada kalsooni intee leeg ayaad shacabka ku qabtaan wax ka badan 100%. gudoomiye aad ma santahay goormo shirweynuhu furmi doonaa adiga hore shirweynuhu kalfadhi uu ku xigi doonaa wuxuu ku aadan yahay falay bisha 6deeda marka ergooyinkii way bilowdeen laakiin maalinka 5 bisha ay wada imanayaan 6da bishana uu furmayaa insha Allah marka aad baa loo soo qulqulayaa magaaladooda dad bay la circiraysaa wayna sii buuxsami doontaa haddii la yiraahdo shirku habkay u dhigeen hanaankii loo dejiyay ahaa barbari oo kalfadhiya iyo shirweynaha oo ku xigayo oo bisha 6deeda sidaas u socon doona haddii la yiraahdo afayaan ma ka soo qayb gali doonaan dad caalami ah oo ahayn Soomaali way ka soo qayb galayaan dawladaha dariska ee Geeska Afrika xisbiyada dalalka dariska ah wadamo reer galbeeda ummado badan baa ka soo qayb galaya axzaab badan oo saaxiibnahay iyo dawlado iyo hay'ado aan ku marti qaadnay iyo jaamacado iyo aqoon-yahano kala duwan way imanayaan haddii la yiraahdo aad baad ma santahay